marwooyinkayga sharafta badnaa waddada tufaaxa gaduudan si aan u gaaro nafteena waa inaan hurnaa ileen dhibaatooyin fara badan ayaan la kulmi karnaa sooma walaalkay cadowga shirqool walba ay maleegayaan waxaa rabaa inaad ka hor tagto dhaqdhaqaaq markii aad ka dareetan seeftaada qoorsa inaad ugu jarto ilmaheenna qabiilkana mustaqbalkooda ilaalin lahaa waynala joogaan hadda ilaahana ma hadda leh kuwii doonaya sukuud inay gubaan annaguna noloshooda ayaannu gubnay dhaqdhaqaaqooda waa burburay haddana waxaa la taagaya waqtiga cadowga dhulkaan ku dari leh muhiimaddeennana waa inagool waxaan u baahannahay madaafiic si derbiyooda aan ugu jebin seefaha geesiyaasheennana waa inay afaysnaadaan middaasii la faham hubkooda ayaan u baahannahay masaafadan dheerna waxaan u gelaynaa si hubabkooda iyo cadowgaba gacantaanu ugu dhigno hal meel haddii aan ka qabsan waxaad la socotaan hal dhib inaan xallinay hoggaami cusmaan shaqo badan inaan qaban ayaa loo baahan yahay kadibna cadowga aan gacanta ku dhigan markaasaan aragno sidaan iska keendhicin walaalkay bir adag haddii aad haysid waxaa macquule bir adag inay ka hor imaado laakiin anaga waxaan haysanaa ustaad daafuuds maasha allah walaalkay tala fiicanna waad keentay weliba caqli ayaad ku dartay annagana waxaan rajaynaynaa markaan soo laabanayna gurigaan la insha allah insha allah insha allah waa la soo laabanayna hogaamiyaha isniig wuxuu rabaa inuu na soo boodo annagana waxaan ku qasbannaha inaan barno sharciyada turkida u yaalaan marka waana isku diyaarin amarkaagaa jiro hoggaamiye maalmaha sida wanaagsan noo soo dhawaysan isniig ayaa ka sheekayn doonta qofkii anaga saaxiib naga dhigta waxaan tuseen saaxiibka dunida wanaagsan inaan kii cadow naga dhigtane goobta dagaalka aan cashir ugu dhigeen hadda seefiyin waa inaad afaysistaan waxaa leer waqtigay tilaabadan qaadin meeshii alaabta aan ka soo qaadi lahayn ayaa la gaaray alaabtaas waxaan rabaa si nabad leh in lagu soo qaado wejidiinna in la arka ma rabo qalad inuu dhacanna dooni maayo qaladoo dhan waa inaad iska ilaalisaan maala daawud sidaa jecesha ayaan samaynaynaa hayna kaanahe saasa burcadda waa kuwa soo ma aragtiin badeecadooda ayay ilaashanayaan macalin daafur xaaladda macilo wanaagsano meel walba ayay taagan yihiin difaac adagna oo waa ay ku jiraan raggaan caadi maaha
waa runta. hadda waa kuwaana way soo socdaan dagaalka meeshaana u imaani waa inaan galnaa ilaahay hanoo fududeeya haye dhaqsada soo socda waaya ustaad daawud socda maxaa sugaysiin haye dhaqaaqa socda halis fududeeyo meeshii ayaan hadda imaanay mana aqoonsanayaa baqin adiga walaalahayga haddii nala ogaado annaga waynoo dhammaatee laakiin intaan nala ogaan ayaan waxayna qaadanaynaa waxba ha ka welwelin ugu dambayn shahaado ayaan noqonaynaa waryaada maxay tahay sheekada aawadiin dhaqaajiida soco lugaha kala bix maxaa sugaysaa soco waryaa nikoole inaad guursato miyaad ku fikiraysaa marow korneeliga guurkan maha mid dhacaa jacaylka awood ayuu leeyahay waxaana wanaagsan qofka aad adiga jeceshaha cimrigaaga inaad ku ag dhammaysato intaan guursan lahaa dhimasha ii dhaanta ani adiga waxaan ku wada hadalna ma hilmaamin ayaan u malaynayaa mary waxaan rabaa guurkii inaad isku diyaariso sida uu dhaqsiyaha badan